bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay. waxaa loo baahan yahay bacdamaa isbedelka imaanaya ay tahay waktigii cuntada oo maalintii la sooman yahay ama calooshii oo u baratay cunto maalintii inay qaadato yani ay sooman tahay yani waxba ku jirin. marka waxaa dhici karaysa yani maqribiyadii ama afurka in muxuu ahayto qofkii cunto badan abatiid badan asoo hayo ku tago. waxaa loo baahan yahay marka ugu horeyso in uu iska ilaaliyo yani cuntooyinka culeyska weyn keeni kara oo aysan ka xoog badanin maaragtay gaajada haysa. waxaa loo baahan yahay biyo aad u badan inuusan cabin waxyaabaha shiilan, waxyaabaha basbaaska leh, waxyaabaha yani baha baruurta leh inaan waxba ku bilaabanin. waxaa loo baahan yahay cunto caadi ah inuu qaato xilligaas oo kooban. guud ahaanna waxaa loo baahan yahay la faraa dadka in ayto cunto isku dheelitiran wax la yidhaahdo carbohydrates la yidhaahdo inuu qaato oo haddana isku dheelitiran oo ah yani cuntadii afurkii xoogaa markuu qaato kadib inuu cuntada kale caadiga aheyd yani qaato. saxuurtana sidoo kale inuusan qaadanin wax culus oo muxuu ahayto cuntada yani la yidhaahdo muxuu ahayto carbohydrateska ama cuntada mamacaan kale ama baastadii kuwa maxaa yeelay waxay samaynayaan maalinta ku xigto waa aad baa horey u gubanayaan kuwa oo waxa waaye kuwa hore yani digestionkooda ama dheefshiidka hore uga baxa waayo oo noqonaya ilaa 2 saac 3 saacadood. waxaa lagu taliyaa kuwa yani daaha ama la yidhahdo slow digestive foodska oo ilaa 8 saacadood soconaya. kuwaas ay ka mid tahay sida masagada, sida galeyda, muxuu ahayto beanska ama digirta, qamadiga iyo waxyaabaha lamidka ah. khudaarta qaarkood ayaa loo baahan yahay. qofka haddii marka xilliga afurka uu qaato biyo badan iyo raashin badan maxaa dhib oo ku imaanaya caafimaad ahaan? waa sax waaye, caafimaad ahaan marka maxaa ku imaan karaya waaye waxaa ku imaan karaya muxuu ahayto in cuntadii badneed uu qaatay. waxaa dhici karaysa caloosha maanta baahneed yani acidkii lasoo saaray oo horey u jirtay haddana hadda cunto badan qaato digestionkas ama saliidaas ku dhacayso oo cuntada badan ku riday in lasoo saaro oo muxuu ahayto acid badan oo markaas yani calool xanuun waxa la yidhaha dyspepsia ay ku dhacdo oo calool xanuun, ibiryo, labolabo, matag, laabjeex oo cuntadii kusoo noqoto oo muxuu ahayto valvolkii u dhexeeyey esophaguska iyo caloosha oo muxuu ahayto furma. dibiryadaas cuntada qaadan kari waaya. waxaasoo dhan ay keenayaan haddii cuntada weliba waktigaas wax yani baruur iyo wax subag iyo waxa ay leedahay wax aada u shiilanna waxay sababaysaa cuntadii inaysan bixin oo dibirye ay noqoto oo markaa dacwashiir iyo cuntadii dhaqaaq weyse iyo cuntadii kaloo batid u yeelan kari waaye inay noqoto. taas waa marka keenayso cuntada badan ha ku hor bilaabanin. cabitaanka biyaha waa muhiim laakiin waa goorma waxa waaye afurka ilaa iyo muxuu ahayto intaa ka seexanaysid cab laakiin cuntada korkeeda biyo badan ha ku cabin. midda kaloo iyadana muhiimka ah oo xilligan yani saxuurta waxaa la yidhaahdaa iska ilaali saxuurta macmacaanka ah ama waxyaabaha sokorta badan leh maxaa yeelay kaadi badanna waa sababayaan ama shaaha badan waxay sababayaan kaadi badan. kaadidaasna waxay daciifinaysaa minerals badan baa kaa baxaya sida macdanta badan oo potassiumka iyo magnesiumka. awood dari ay keeni karaysaa iyo pressureka oo dhaca.